kulanti wanaagsan dhageystayaasha iyo asxaabta meel walba aad joogtaan. waxaan rabaa arrimaheena dalka Soomaaliya. xaqiiqatan waxyaabo fara badan ayaa dalkeena ka jira oo u baahan in wax la iska weydiiyo. waxyaabaha ka jira dalkeena ma la soo koobi karo, waa wax aad iyo aad u badan. waxaan rabaa Itoobiya inaan si fiican u fahanno. inta aanan ka hadlin tan hadda taagan, horta aan isweydiino taariikh ahaan Soomaaliya iyo Itoobiya imise goor ayay dagaalameen. dagaalada dhexmare ma hadday soo bilow ma wax hadda bilow ahbaa ma wax hore u jiraya. Itoobiya waxyaabahan ay raadinayso ay mar walba ay leedahay aniga waxaan dhulkaasaan leeyahay maxay ka wadaa in isweydiino ayaa fiican. taariikh ahaan hore sama u dagaalna waa dagaalna. haddii aan dagaalanay oo dagaalo badanna dhex mareen yaa ku guulaystay lisma weydiinayo. guusha Soomaaliya la jirta mar walba Soomaaliya guulaysaysa, laakiin dadka Soomaaliyeed ma xisaabtamaan, gadaal wax uma eegaan. keliya waxa waaye saacaddaas wax taagan ayay qiimeeyaan, wayna fix garayaan, mana sii joogaan. dhaqankaas waa dhaqan aad aan u fiicnay runtii. waana waxyaabaha loo baahan yahay in wax aynu ka bedelno. awoowayaasheenii hore ama Itoobiya ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto waxay ahaayeen daris bay ahaan jireen, way dagaalami jireen. maxay ku dagaalami jireen? dagaaladaas xagee ku dambeyn jireen? goor bay soo bilowdeen. mar kasta Itoobiya siduu Ilaahay uga adag yahay qofka bini aadamka ayaan uga adkayn. laakiin hadda waxaa bilaabatay waxa la yiraahdo alla Itoobiya soo joogaysa, alla Itoobiya nin u orda oo yiraahdo macnaha hanoo yiraahdo qaybaan ku siinay, iyo mid macnaha yiraahdo waa la xiriir waxaan la sameysanayaa xiriir baan la sameysanayaa, iyo mid la dagaalamaya. markee kee waay Soomaaliga saxda ah? aan ka soo gudubno midda kale. Itoobiya waxaan ay daba socoto ee mar walba ay leedahay aniga dhulkaasaan leeyahay, baddaasaan qabsanayaa, oo annagana aan waxba saas u qiimaynaynin. maxay tahay? ma annagana lagu jiraa? ma dad annaga naga mid ah wada? ma khaarij Itoobiya macnaha oo dad ku adeeganaya ayaa wata? inaan isweydiinaa fiican. dhibaatada kala jirta ayaa waxay tahay dadka Soomaaliyeed mar kasta waxay dagaal ayay ku jiraan, dagaal bay ku jiraan. dagaalkan Soomaaliya mar walba dad Soomaaliyeed ay ku dhex jiraan yaa horiya. qayb ka mid ah dalka Soomaaliya waxaa la yiri Itoobiya ayadaa laha la yiri. haddana Itoobiya ma laha, Soomaalidana ma laha la yiri. Itoobiya anaa leedahay waa sheeganaysa, laakiin ayada ma laha. ma la isweydiiyey sababta ay arrintaas ku dhacdo? Itoobiya waa shaqaale, waa lagu shaqaysanayaa, mana fahansana. madaxda Itoobiya iyo shacabka Itoobiya ma fahansana. waa qayb ka mid ah shaqaale gumaysiga uga tegi waayo, mana hormarto ayada, meel ma gaarto. dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed kale qaybaha kale ee Soomaaliyeed sidoo kale waxaa loogu talagalay waa xujo taagan oo loo baahan yahay in ay fahmaan siyaasiyiinta geeska Afrika. ma fahmayaan marka siyaasiyiinta geeska Afrika waxa la rabaa waxaan yaa wada. hadda NFD waxaa lagu daray Kenya lagu daray.
dadka jooga Soomaaliya ma aaminsan inay yihiin macnaha Kenya dhab ma aaminsan laakiin inay wadankaas ka mid yihiin waa aaminsan yihiin oo macnaha waa la qabatiyay laakiin inay Soomaali yihiin og yihiin marka waxaa la rabaa marka annaga dhibkan taagan inaan xallino odayaashii maanta dalka u soo haray ee nool ee jiilasha dambe inay gaarsiiyaan la rabo waa annaga waxaa la rabaa siyaasiyiinta geeska Afrika inay fahmaan gumaysiga inaan mar walba u shaqeyno macnaheedu cad gaar ahaan reer Yurub waxaa ka shaqeeyay Ingiriiska ka shaqeeyay Ingiriis xujo uu meesha dhigay haddii aan furi weynay ama siyaasiyiinteen ay furi waayeen marka maxaan nahay dad Jermani marka waxaa la rabaa aan ka soo bilownay xilligii Axmed Guray dagaalkiisa waxbaa lagu dagaal galay oo qowmiyadda Soomaaliyeed ay ku dagaal gashay oo tusaale kale waxa waaye dadku dhici jiray boqorkii markaas xabashida xukumi jiray wuxuu ka qaadi jiray baad xoolaha dhan oo moorduugu jiray wax walba uu samayn jiray Axmed Guray tii uu ka gulgashay tiiba dadka Soomaaliyeed ay ka dagaalameen ka soo gudub Maxamed Cabdilla Xasan waxbuu ka dagaalamay gumaysi nacayb ka dagaalamay ilaa iyo heer markii dambe oo la isugu tagay gaarto oo macnaha diyaarada lagu weerar taasina waxbaan duulaan ku qaadno waxbay ahayd waa laga soo gudbay xornimaan raadin dadka Soomaaliyeed waxay haayeen aragti bay lahaayeen oo ah xornimadoon waa ku guulaysan oo meel baan saarnay waa kuwaas guureen laakiin waxay ka tageen xujo ah labada daraf ee Kenya iyo Ethiopia ay ku kala wareejiyeen qaybo ka mid ah dhul Soomaaliyeed isma weydiinin marka xornimada qaadanay haddana waxaan dhulka maqan hala doonaa la yiri waa la doonay waxay dhulka maqan aragtidaas lagu dagaal galay marka ugu horeysa waa guulaysan laakiin haddana waana laga guulaystay markii dambe marka waxaa la rabaa tan hadda taagan ee ah Ethiopia ay leedahay waxaan rabaa bad waa inaan xoog ku helaa dee wax la qaadan karaa maaha dadka Soomaaliyeed waxaa la rabaa aragti adag oo ay aragtidaas uga jawaabayaan waa in la helo haddaanan la helin aragti kale oo looga jawaabo ama la hordhigo aanan la helin ani waxaan qabaa si hore aan u guulaysan jirin uma guulaysanayn tusaale oo kale hadda waxaa ka mid ah Musabixi wuxuu u saxay qayb ka mid ah dhulka Soomaaliyeed isagoo leh mar waa kiro Ethiopia leedahay dhul aniga ka mid ah waa macnaha ani hadda inaan la wareegaan rabaa qasab inaan kula wareegaan rabaa maamul goboleedyada qaar waxayba la heshiisayba la saxiixdeen gudaha dalka waa joogtaa inkastoo ay sii socoto ay ka baxayso dalka qaab si kale ay ku soo gashay marka waxaa la rabaa inaan isweydiino marka aragti midaynaysa dadka Soomaaliyeed oo ay leeyihiin in la helo oo dawladda Soomaaliya ay la timaado oo dadkan la isugu duubi karo dalkiina lagu difaaci karo laguna waliba anigu waxaan qabaa aragti ka weyn maqnaanshaha zoonka shanaad ama muxuu ahaa NFD aragti ka weyn inaan la imaano ani taasaan qabaa meel ka xoog badan aan gaari karnaa tii odayaashan ay gaareen laakiin haddaan taaganahay macnaha muxuu ahaa waxyaabahan hoose inaan u sii dhexgal aanan jeclayn waxaan aaminsanahay inaanan sidii la rabay aysan ahayn sidaas darteed sababta aan u soo galay live-ka ayaa waxay tahay aragtidan in ay macnaha noqoto kayd ummadda Soomaaliyeed u haraya aniga marka waxaan qabaa in Ethiopia aynu qabsanno waan awoodna inaan qabsanno awooddeedaan leenahay haddaan nahay dadka Soomaaliyeed la mideeyo waxaan leenahay
aqoonteeda maanta leenahay diblomaasiyad ahaan in dunida laga gado arrintaas maadaama iyadu ay hari weyso si loogu quusiyo Itoobiya gebi ahaan inaan qabsanno arrintaasaan qabaa waayo si kale ay ku haraysaa ma jirto madaxda Itoobiya gadaal baa laga soo shidaya waxa soo shidaya way quusanayaan laakiin haddii la yiraahdo Itoobiya waxaan darsinimaan wadaagaynaa ganacsi aan dhex maraayo wax wada qaybsi Itoobiya waxaas kama dhaadhacay Soomaaliya waxay tiraahdaa dameer iyo amxaarba oo dooday daaqsin ka bilaaba walaalayaalow Itoobiya madaxdeedu waxa waaye wax nabad la yiraahdo ma ogola sidaas darteed aniga marka waxaan qabaa in Itoobiya loo quusiyo sidee loogu quusinayaa waxaa loogu quusinayaa in shacabka Soomaaliyeed aragti ahaan laga gado in Itoobiya aynu qabsano siyaasad arrimaha dibaddana laga shaqeeyo arrintaas mar haddii sidaas la sameeyo wax badan inaan guulo badan gaaraynan aamsana Itoobiyana way quusanaysaa sababto aniga maba rababa muxuu ahaa zoonka shanaad iyo NFD iyo wax ka weynaan raadinaya Itoobiya mar walba wax weynay rabtaa annaga marka waxaan ku agnahay yuraysi oo ah meeshaan soke ayaan ku agnahay inaan isdifaacno keliya xuduudaheena inaan ku ekaano waa in la helaa aragti midaynaysa qowmiyadda Soomaaliyeed oo ah in Itoobiya aynu ku qabsano waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay waxay tahay in aynu la nimaado balaan aan ku qabsanayno Itoobiya haddii aan la nimaano balaan aan ku qabsanayno Itoobiya isla markaana fulinteedii aan ku dhaqaaqno waxaan aaminsanahay inaan ku guulaysanayno aragtidan ah Itoobiya ay ku sheeganayso dhul Soomaaliyeed mar walba iyo bad Soomaaliyeed halkaas ku go'aysaa waayo qofkii macnaha muxuu ahaa wax ku soo kuuskuusay adigana wax u dhudhubaysa ma tiraahdo laakiin haddii ay maanta aan anagu sameeyno muxuu ahaa waa inay muxuu ahaa ka tanaasushaa heshiiskaas wax weyn ma aha markii aan aragtiyada aan ka hadlo macnaha waa yasidba haddii aragti adag laga horgeeyo iyadoona la dhihin ka tanaasul ayay si cad uga tanaasul lahayd weliba taa dib dambe u sheegateen bad hataa ma soo hawaysateen iyo dhul Soomaaliyeed aniga marka waxaan qabaa in aan macnaha la iska iloobo aragtidan ah Itoobiya waxaana dhex mari kara ganacsi ama wax isdhaafsi iyadoo adeegsanaysa dekedaheena Itoobiya ilaa ay haysato zoonka shanaad wax ganacsi ama wax wada qabsi nama dhex mari karo waayo Itoobiya aamin ma leh 20 sano oo kumbilaada aan arrimaha Itoobiya aan fokuskaygu ahaa 34 sano ee dalkeenu dawlad la'aanta ahaa oo burbursanaa Itoobiya waxay ka shaqaynaysay siday Soomaaliya u qabsan lahayd
tusaale kale ayin siiyo zonka shanaad waxay ka samaysay biixireenkaas jacayl ay u qabtay Soomaalida ay degan tahay maaha waa nooc loo sameeyay dagaal waxaan ka sameeyay ugu yaraan ilaa 5 waraysi iyo 6 waraysi markaan arkay arrintu sida ay taa u culus tahay naftayda u baqay waa jooji laakiin maanta iyo waagaas maanta ka rajo fiicana qaybo kamid ahna waa soo bandhigi doona waraysiyadaas mid kamid ah maamuladii oo maamulkii oo Cabdi u hogaaminay wasiirada kamid ah ayaa waraystay waxa laga dhaadhiyay dhulka wabigaas inuu lagu sameeyo daam biixireenka lagu sameeyo in ayagu xor u yihiin maba aaminsanba wax la yiraahdo biyaha ka dhaxeeya dawladaha isaga gudba waxyaabahaas oo kale ama aragti oo caalami ah maba aaminsanaba wuxuu leeyahay annaga iskala waxaan doonaa ka samaysanayna biixireenkaas waxaa loo sameeyay qaab dagaal ah loo sameeyay xilli roobaadka marka la gaaro daamkaas weyn ee la sameeyay waxa waaye 3 kiiloomitir waay oo isku weer ah hoosna 3 kiiloomitir ka badan inay u qodantaan u malaynaa sidaan markii ugu wardambeysay asoo 3 kiiloomitir marayaan ugu wardambeysay marka 3 kiiloomitir oo isku weer ah oo hoos loo qaday biyihii lagu kaydinayay xilli roobaadka waxa waaye marka uu buuxsamo waxay ku soo fasaxayaan wabiga waa sababta wabiyada muxuu ahaa gobollada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose mar walba ay daadadku ay u halakeeyaan markii xilliga abaarta la gaarana way xirayaan sababta biyo yaraana timid ilaa uu ka buuxsamo way xirayaan markii biyaha ay xiraan jaa wabigii wuu guraya imisa ku nool meeqa kiiloomitir waay meesha daamka laga qoday ilaa iyo shabeellada hoose aakhirkeeda imisa kiiloomitir waay dadkii ku noolaa xoolaha ma tiraahdid dad ma tiraahdid ayu nooc waxa waaye halis bay galayaan xilli roobaadkana way ku soo fasaxaysaa markaasa waa marna daadad waayo marna waa abaar yaa ka shaqeeyay ma jiri jirin waagi hore waa nidaam qaab system dagaal way u samaysto Itoobiya kow maamul goboleedyadan madax kasta oo xilka qabataa lacag bay siisaa anaa ku taageerayay tiraahdaa ayadaa madaxa isugu dhufatay maamul goboleedyada ayadaa ciidamo siisa ayadaa hub siisa ayadaa dhinaca mukhaabaraadka ka caawisa waxaasoo dhan ayay ka shaqaynaysa marka dadkeennu ama siyaasiyiinteennu waxaa lagu mashquuliyey nidaamka 4.5 maxaa keenay Ethiopia keentay inay macnaha sidaas la sameeyo bal wax yar dib u fiiri aan dib isu fiirin wax yar aan dib ugu noqono hogaamiye kooxeedadii ama jabhadihii ayadaa soo hubaysay markii ay soo hubaysay meeqa urur bay isu bedeleen meeqa ka farcanta dalka maxaa wareeriyey ayadana intaas gudahay ka shaqaysanaysa qof alla qofkii aragti siyaasadeed ama leh curin wax uun samayn kara ayay khaarajinayso shabaab ayagaa maalgeliya iyagaa mukhaabaraad ka caawiya iyagaa hubka siiya deegaanada ay joogaan bal fiiri war ilaah idinku dhaariya shabaab haddii ay gaalo la jihaadayaan Itoobiya yay yihiin meel kale kama dagaalamaan dhul Soomaaliyeed unbay ka dagaalamaan maxay tahay aragtidaas kow Itoobiya muxuu ahaa waqooyi galbeed ingiriis siyaasadiisii ayaa lagu maamulaa ingiriis ayaa maamula
safaaradda ingiriiska ee Ethiopia ayaa laga maamulaa waxaan dadkan arkaysid Soomaaliya waa ka go'nay balaayadaas qofaayad arkaysid waa sim card la soo geliyo waay lacaga la siiyaa mushaari qaataan dadku shacabka waxaas ma arkayaan mana oga haddaba waa yaabe marka annaga ma waligeen sidaan baan dagaal ugu jiraynaa marka waa maya haddii aragtidan oo geeska Afrika siyaasad ahaan la mideeyo zonka shanaad dhul Soomaaliyeed laga dhigo NFD dhul Soomaaliyeed laga dhigo Soomaaliya Ethiopia oo heshiisa Kenya Ethiopia oo heshiisa waxa wadaagi karnaa daris waa ahaan karnaa oo aynu ka gudubno siyaasadan reeyo waayo dhulka ayaga ma leh Ethiopia ma leh Kenya ma leh waa dhul Soomaaliyeed ilaahay ku dhaariyay Ethiopia maxay ka qaban kartaa zonka shanaad inay wax ka dhacdo inay wax disho weyn wax ma hormariso ayadaan horumarsanayn mala aragti horumarsan ko dhuwan waxay leedahay Soomaaliya maxay ku qabsanay ayadaa baaba'san haddii wax qabsanayso oo ay rabto Eritrea maxay u sii daysaa Eritrea Soomaaliya ka yar ay sii daysaa sababta u sii daysaa maxay tahay Soomaaliya ayaa waxa ka jirta dawlad aan rajac ka gashay marka Soomaaliya qabso sababtaas muxuu ahaa Eritrea xornimada loo siiyay sababtaas ahayd laskama siin Eritrea waxa loo siiyay in dhulkan Soomaaliya ay la wareegayso Ethiopia qorshaha balanka taas ah mid kale Ethiopia qorshe fogay leedahay بيعران كوين ويجا النيل انت ايوه تبريريت هشيسي اقلي هشيسي لك شيء مصر iyo Suudaan laakiin markii ay aragtay in ay xoogaa awood leedahay Soomaaliyeedii ay ka baqay jirtayna ay burburtay ay ku dhiiratay inay dhisto marka visionkeedii ahaa in ay dhistana way samaysay way dhistay hadda maxay ku hawlantaa marka Soomaaliya qabsanaa marka laakiin Soomaaliya qabsashadeedu sahal ma ana waxaan qabaa marka si dalkan loo badbaadiyo Ethiopia waa in aynu qabsanaa aragti aynu ku qabsanayno waa in dawladda Soomaaliyeed ay dejisaa siyaasad oo qarniyaal soconayso ma aha waxaan dhow ma aha siyaasad qarniyaal soconayso oo tartiib dhulka Ethiopia aynu ku qabsanayno waa in la dejiyaa haddii aan taas la dejin hawaaye Ethiopia qorshaheedii 34 sano dalkeena u burbursanaa way sii horumarinaysaa annagana waa ka hurnaa waxaas haddaanan la helin aragti taas lagu difaacayo oo muxuu ahaa aan looga hortagayo oo ka adag taas haddaanan la helin marka waxay noqonaysaa mar walba inaan isdifaac kaliya ku soo koobno bal fiiri zonka shanaad waa la soo gurayaa haliyiri markay kaceen ayaga ay soo jeesteen oo shacabka Soomaaliya ay kaceen in dhulkooda la guranayo markay arkeen waa laga joogsaday markii laga joogsadayna haddana mid ka weyn lagu dhawaaqay maxaa la yiri waxaan qabsanaynaa Soomaaliya oo badda Soomaaliya qayb waa inaan ka helnaa la yiri qasab ah marka Ethiopia qorshaheeda bal fiiri sababta hadda ay u raadinayso kala hadda ay u raadinayso muxuu ahaa bad maxay tahay matqan waxa gaaska ishidaalka laga helay zoonka shanaad ay inay ka dhoofiso rabtaa sheeko waxaa jirtay
oo shaka Soomaali oo la sameeyay iyo mid ay dhab tahay ma aha waxay ugu soo gaartay warin bay ugu soo gaartay geel ayaa la dhacay beelo kamida laga dhacay markii geeli laga dhacay geeli ayaa la gatay inta la gadaa lo lagu soo bedelo lo'dii ayaa waxa laga waraabiyay ceelkii dadkii geela lahaan jiray ay lahaayeen ayaa laga waraabiyay markii la waraabinayo lo'dii la shubay ayaa waxa la yiri waa geeloodii geesa loo yeelay mana garanayaan sidaas ceelka lagu shubay oo lo'dii lagu waraabinayo waa geeloodii oo geesa loo yeelay mana garanayaan bal ka waran waxay rabaan gaaskii dhulkeenni Soomaaliyeed laga helay shidaalkii dhulkii Soomaaliyeed laga helay ay haddana inay baddeena ka dhoofiyaan ay rabaan iyagoo leh waa geeloodii geesa loo yeelay mana garanayaan macquul ma tahay dadka Soomaaliyeed qabiil waxba tari maayo shakhsi nacabna waxba tari maayo waa walaalka Soomaaliyeed haddaad disho maxaad ka faa'iiday dambi ma ku soo koray haddaad dhacdo maxaa ku soo koray dambi ma ku soo koray haddaad iska riixdo maxaa ku soo kordhay wax ku soo kordhay male ninkaas aad iska riixayso aragtida uu qabo iyo ta adiga aad qabto sidii lagu midayn lahaa oo hal loo noqon lahaa aynu ka fikirno aynu ka gudubno marka dalkeena isaga wax walba adduunka dhanka qaalisan marka nacabka inta meel iska dhigno aragtida dawladaha shay wataan meel iska dhigno aynu u soo jeesano dalkeena haddayna saas sameeyno waxa waaye waligeen ka bixi mayno in ciidamada shisheeye dalkeena ay joogaan ma kala ilaaliyaan waxaas yaa ka dambeeyo ma aha aragti Soomaaliyeed ma aha aragti muslimna ma aha waa aragti banaanka ka timid haddaanan aragtidaas daweyninna oo aynan fahmin dee wax annagu aan dhalnay waxaan uga tagaynaa sida annaga u wareersan ayuu wareersanaanaya warku idinku dheereeyey dadka Soomaaliyeedow waxaan codsanayaa hanti idinkama rabo wax kale aan idinka rabo ma leh fadlan aan midoon dalkeen aan ilaashanno aan horumarino adduunyadana nidaam lagula dhaqmay jireen nidaamkeen adduunyada lagula dhaqmaayeen aan la imaano qofkii kaas waxaan ahayn noola yimaadana aan iska dhicinno annagoo mid ah wixii aan qalday nafteedu xun shaydaanay ka ahaadeen waxaan hagaajiyeen xaq alle ka hagaageen fadlan walaalayaalow fadhiga aynu ka kacno salaamullaahi calaykum waa anigu ah maxamed macalin cismaan oolmaan oo jooga Minneapolis Minnesota USA taariikhda maantuna waa 27 bishii 8 2024 You're